xidhno halkan kuna soo gabagabayno training muddo tababar muddo inoo socday oo inoo fulinaysay Anti-Chire Consultancy oo runtii ahaa training qiimo leh wasaaradda tamarta iyo macdantu waxay fulinaysaa siyaasadda guud ee xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland marka aynu qabanaynay tababarkan waxaanu ka duulaynaa siyaasadda guud ee xukuumadda ee ah in la dhiso dadka guri la dhiso waxa ka qiimo badan 100 jeer sidaynu ka warayno qof la dhiso qof aqoontiisa la dhiso qof garashadiisa la dhiso qof tayadiisa la dhiso ayaa in badan ka qiimo badan guri dhagax iyo dhoobe la saaray waxa ka qiimo badan dhismaha dadka iyo aqoonta bini'aadamka oo kor loo qaado indagoo taa ka duulayna waxaynu go'aansanay inaynu training-kan ama tababarkan iyo kuwa la midaba aynu u hurno dhalinyarada iyo shaqaalaha wasaaradda si aqoontooda aynu kor u qaadno si iyaguna ay u dhiiqaan waajibaadkii laga filayay inay iyaguna laga maalo si looga maalo waxay ku xidhan tahay hadba aqoonta ay u leeyihiin waxaan ay qabanayaan strategy-ga wasaaraddu maaha wax yar sidaynu la soconno waxaanan qorshe iyo lahayn maxaa la yidhaha himilo iyo maxaa la yidhaha higsi de waxay noqonaysaa wax gola kafuul waxaanay Soomaalidu tiraahdaa oo hadba waxaa uun aad ku taagan tahay ama kulma inaad address garayso laakiin waxay qiimo yeeshaan daily activitieskii iyo shaqada maalinlaha waxay wax tartaa marka ay qorshaysan tahay ee wax looga jeedo ee meel lagu socdo taasaa istaraatiijigan aynu training-ka ku qaadanaynay inaynu samaysano faa'iidadiisu tahay waxaan maanta ku hanweynahay oo aynu ilaahayna ugu mahadnaqaynaa in wasaaraddu ay awood u leedahay inay samaysato iyadu strategic plan-keedii waxaanaynu filaynaa oo qorshaheenu aynu qorshaysanay in muddo 4 bilooda uu ku dhammaystirmo qorshihii dheeraa ee muddada fog ahayd ee wasaaradda tamarta iyo macdantu waan hubaa in laga soo baxayo waxaa ku ammaanan hawshaa runtii oo si hufan oo aan hakrasho lahayn oo aan ahayn ma garanaysaa uun meesha waxoogaaga muddada aad qaadatay uun ka faa'iidee ee sidaan ka warhayo si dhiiba oo jeclo leh oo ma garanaysaa inay u dhiibatay Anti-Chire Consultancy aad bay ugu mahadsan yihiin waxaananu ka filanaa inay hawshaa ay wadaan ee tababarada ah ee consultancy-ga ah ee ay sida hufan aan u aragnay inay u fulinayaan inay sii wadaan oo waddanku u baahan yahay ay halkaa ka sii wadaan waxaynu ilaahay uga baryaynaa inay noqoto tii hirgasha taabaqaada iyaduna siday hirgalka iyo taabaqaadka ku helaysaa waxa weeyaan iyadoo sidaa aynu maanta u aragnay u shaqaysa u sii wadata oo aan bedelin ama dib u dhac ku samaynin khadamaadka ay bixinayso qaabkan ay u bixinaysay taasi waa mid waan hubaa agaasimayaasha waaxyuhu awalba aqoontooda waynu ogeyn waa rag iyo hablo qiimo leh oo aqoon leh oo hufan oo waxba isamaani maynee waynu sognahay waxaynu rajaynaynaa inaad halkaa ka sii wadaan aqoontana waynu sii kororsan kani waa mid ka mid ah barnaamijyada aynu doonayno inaynu ku tababarano tababarka waxbarashadu waa gacan ku hayn maalinba hiigsi hor le baynu qaadaynaa insha allahu tacaala tababaro fara badan horena waynu u qaadanay iminkana waynu qaadan doonaa tababaro waxaynu xoogga saarnaa inaanu dhisno aqoonteena sidaan hore u sheegay aqoonta shaqaalaheena iyo madaxdeena khayr baan idin rajaynayaa waana laydinka sugayaa hawsha aynu u tababaranay in aad ka midha dhalisaan oo muddada 4 bilooda ku soo dhammaystirtaan qorshihii
muddada dheer ahaa ee wasaaradda tamarta iyo macdanta aad iyo aad baa u mahadsan